السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بدن عفيمات قب نولل وناكسن يفرحة يعني دي رجينيا هدي كاديدا دو ميدبك جدودك أما ميدبك عساك أي نقطة أديقوان استعمالين عنتوين كقار سيدا قدارتا كاديدا ميدبك دا بدالي كرتا أما الدووين عن قادن مركاد بيها عبتو هدي أي عدان ويدو وبيها ير jirkaaga ku yar midabka kaadida way bedeli karaan oo way sababi karaan midabka kaadidu inuu casaan ama guduudu isku bedelo. laakiin haddaad biyo badan cabto oo biyihii badnaana ay bedeli waayaan oo adoo biyo badan cabay weli kaadidaadii ay tahay mid guduuda ama mid casaana, fadlan 60 xanuun ayaad halis ugu jirtaa ee goob caafimaad iska xaadiri sida waliba ugu dhaqsaha badan. qaybta koowaad waa inay obstruction wax la yiraahdo ay jiraan sida tumor iyo tissue meesha ay kaadidu soo marayso inay wax xanibeen oo waxaas ay markaa ama kansar ha ahaato ama hilib ka beermay ha ahaato ama cadis ku xidhay ha ahaato inay dhibaatadaas u jirto ayaa markaa laga shakiyaa calaamadu noqon kartaa. waxa kale calaamadu noqon kartaa inay hematuria wax la yiraahdo ay dhaceen, in infection uu jiro, UTI la yiraahdo urinary tract infection inay jiraan, wadada kaadidu ay soo marto inay caabuq ka jiro. caabuqyada waxa kamid ah xanuunada gogosha lagu kala qaado sida xanuunka jabtida iyo xanuunka waraabowga iyo xanuunadaasi inay kugu jiraan oo jirkaaga ay ku jiraan. taasina waxa lagu ogaan karaa baadhis caafimaad ama medical diagnosis in lagu sameeyo ayaad u baahantay ee fadlan goob caafimaad iska xaadiri. xanuunka saddexaad waa inay jiraan kidney disease ama kidney infection qudhoodu inay dhaceen, xanuunada ku dhaca kaliyaha inaad la jaartay ama aad la daristay ama kaliya xanuun inaad qabto ayay tilmaamaysaa kaadida oo midabkeedu guduud noqdo ama casaan noqdo. xanuunka afraad isaguna waa bladder stone, waa kaadi haystaada oo dhagxaan ay ku jiraan. haddii kaadi haystaada ay dhagxaan ku jiraanna halis baad iyadana markaas ay kaadidu waa mid sheegaysa midabkeedu inuu isbedelo oo midabka noocaas ay isku bedelaysaa. taasina waxay u baahan tahay in baadhis rasmi ah lagu ogaado si xanuunka looga hawlgalo oo dawadiisii iyo taladiisii loo gaadho. waa in marka hore lagu baadhaa ee goob caafimaad iyo shaybaadh baynu kugula talinaynaa in lab department ama laboratory department aad tagto oo la baadho. markaa xanuunka ugu dambeeya waa inaad qabto prostate enlargement inay dhaceen, in qanjirka prostate-ka la yiraahdo inuu bararay oo taasina ay keentay midabka waa uu bedeli karaa. in xanuunkaas prostate cancer ama prostate enlargement lixda arrimood ayay tilmaamaysaa in kaadidaada oo isbedesha ay qayb ka tahay biyaha oo kugu yar, xanibaad wadada kaadidu ay soo martay shay xanimay sida inay buro tahay ama kansar tahay ama markaas meesha hilib ka samaysmay, caabuq jira, kaliya xanuun, iyo sidoo kale in kaadi haysta ay dhagxaan kaaga jiraan iyo in qanjirka la prostate-ku bararay. lixdaas ayay sheegaysaa. la sii wadaag bulshada kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.